haddii aan ku siiyo hal run oo markaasi naftaada bedeli doonta soo kalena kaa dhigaysa qof guulaysta waxay noqon doontaa midani dad badan waa ay fashilmaan sababtoo ah waxay odhanayaan ma awoodno midan amba waxay odhanayaan waqti ma hayo amba lacag ma hayo amba waxay odhanayaan xaaladaydu way ka adag tahay tan dadka kale ay ku jiraan laakiin su-aasha ayaa waxay tahay haddiiba ay jiraan dad badan oo marmarsiyo badan maxay ku guulaysan lahaayeen haddaba farqiga u dhexeeya qofka guulaysta iyo qofka guuldaraysta ma dhihi karno waa nasiib ama markaasi caqli badnayd balse keliyaata waxa weeyaan hal shay oo ah inay ku kala duwan yihiin adkaysiga shayga ay markaasi ku guulaysteen intii ay ku guda jireen waddadii ay u mareen shaygaasi guushiisa muuqaalkeena maanta saaxiibayaal waxaan kaga hadli doonaa sidee aad u joojin lahayd marmarsiyada misana naftaada la xisaabtami lahayd magacaygu waa Mr. Haybe haddaba haddii aad nagu cusub tahay saaxiib noogu soo biir oo bartiina saaxiib nagula noqo si aan xogo badan u kala faa'iidaysano haddii aad hore noola joogtana muuqaalka like noo saar waxaan rajaynayaa inaad la wadaagto saaxiibkaaga aad jeclaan lahayd inuu muuqaalkan ka faa'iidaysto jooji marmarsiyada way fududahay inaad naftaada ku eedayso amba qoyskaaga aad ku eedayso inay jirto dhaqaale la'aan iyo waxyaabo la mid ah balse waxaa loo baahan yahay inaad mas'uuliyadda u weyn ee naftaada adigu aad qaado oo ah wax kastoo adigu qabanayso haddii uu kugu adkaado maaha inaad dhahdo maaha shaygani shay igu habboon ama aad dhahdo shaygani maaha shay aan qaban karayo balse waxaa lagaga baahan yahay muhiimadda ugu weyn inaad adkaysi samayso si aad ugu guulaysto shaygaasi sidoo kale waxaad ogaataa intaad eedaynayso dadka kugu hareeraysan amba qoyskaaga ha noqdaan amba asxaabtaada ha noqdaane inaanad marnaba wax guulaha gaadhi doonin balse maalinka aad tiraahdo aniga ayaa mas-uuliyaddan qaadaya qalad kastood gasha haddaad dhahday aniga ayaa mas-uuliyaddan leh oo qaadaya eedaynta dadka kale aad ka dayso taasi waxay noqonaysaa maalinkaad heshay waddada saxda ee guushaada ku gaadhi lahayd bal qiyaas laba qof oo doonaya in mid kastaa xirfad barto mid ka mid a labada qof wuxuu haystaa wax kasta uu baahiyey asaasiga ah ee shaygaasi uu u baahnaa hadday noqoto internetka hadday noqoto markaasi computerkii iyo waxyaabihii kale ee xirfaddaasi uu ku baran lahaa oo dhan wuxuuna doonayaa inuu shaygaa uu rabo uu ka gudub gaadho balse caqabadda keliya ee hortaagan ayaa waxay tahay shaygan waxay qaadanaysaa inuu barto muddo wakhti ah wax kastana marka la baranayo amba wax kasta oo kugu cusub marka aad baranayso waa khasab wakhti ayaa gelaya balse haddii aad tiraahdo muddo kooban ayaan ku helayaa shaygani midaas macquul ma noqonayso halka qofka xiga ee aan haysan wax internet ah wax markaasi baahiye asaasiga ah ee xirfaddan uu baranaya ka caawin lahaa uu odhanayo amba uu go'aansanayo maanta waxaan hayo ayaan ku bilaabayaa taasi waxay ka saacidaysaa inuu markaasi helo karti ama markaasi uu helo dhiiranaan uu markaasi ku wajihi karo shayga amba xirfadda uu baranayo daba waan isweydiisa saaxiib haddiiba aad dhibaato la kulanto shay aad rabto inaad ku guulaysto haddii aad dhibaato amba caqabad kala kulanto waxaad keliya isweydiisaa waa inuu noqdaa shaygan sidee u xallin karaa caqabaddan anigu ma xallin karaa midaas waxay ka hor istaagaysaa inaad dadka kale eedayn saarto waxayna maskaxdaada ka dhigaysaa inay u jahaysto soo kalena ay ku dadaasho in ay raadiso xalka shaygan haysta halkii ay beddelkayga ay markaasi dadka kale ee ku hareeraysan ay eedayn lahayd misena ay dhihi lahayd iyaga ayaa caqabadigu ah muuqaalkan saaxiib haddii aad cashar ka baranayso waa inuu noqdaa halkan cashar haddii aad rabto inay noloshaadu isbeddesho waa inaad marka hore adigu isbeddeshaa aad beddeshaa dabeecadahaaga ah eedaynta aad dadka kale saarayso mas-uuliyaddaadana adigu aad qaadaa qalad kastoo adigu gashana mas-uuliyaddiisa adigu aad qaadaa muuqaalkeena maanta saaxiibaya intaas ku eegay waxaan rajaynaya inaad muuqaalkan wax badan ka faa'iideen haddaba saaxiib haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir haddii aad hore nooga joogtana muuqaalka like noo saar